taliska hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ayaa jawaab dhameystiran waxay ka bixisay xaaladda uu ku sugan yahay wadaadka xabsiga gurubka Muqdisho hogaamiye ku-xigeenkii hore al-shabaab Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur kadib dalab ka yimid wasiirka amniga ee Soomaaliya in markaasi ay warbixin 48 saacadood kadib hay-adda NISA ay ku soo bixiso. Cabdinaasir Al-Cadaala ayaa wararkii ugu dambeeyay ee xogahaas inoo haya. iyadoo wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur uu dalbaday warbixin ku saabsaneed xaaladda Muqtaar Roobo ayaa waxaa arrintaasi ka jawaabay taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo markii hore laga dalbaday warbixin dhameystiran inay ka soo gudbiyaan Roobo. warqadda uu ku saxiixan yahay kusimaha taliyaha NISA Yaasiin Faray ayaa lagu sheegay in xaaladda caafimaad taliska hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ayaa jawaab dhameystiran waxay ka bixisay xaaladda uu ku sugan yahay wadaadka xabsiga gurubka Muqdisho hogaamiye ku-xigeenkii hore al-shabaab Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur kadib dalab ka yimid wasiirka amniga ee Soomaaliya in markaasi ay warbixin 48 saacadood kadib hay-adda NISA ay ku soo bixiso. Cabdinaasir Al-Cadaala ayaa wararkii ugu dambeeyay ee xogahaas inoo haya. iyadoo wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur uu dalbaday warbixin ku saabsaneed xaaladda Muqtaar Roobo ayaa waxaa arrintaasi ka jawaabay taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo markii hore laga dalbaday warbixin dhameystiran inay ka soo gudbiyaan Roobo. warqadda uu ku saxiixan yahay kusimaha taliyaha NISA Yaasiin Faray ayaa lagu sheegay in xaaladda caafimaad ee Muqtaar Roobo ay wanaagsan tahay taliska hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ayaa jawaab dhameystiran waxay ka bixisay xaaladda uu ku sugan yahay wadaadka xabsiga gurubka Muqdisho hogaamiye ku-xigeenkii hore al-shabaab Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur kadib dalab ka yimid wasiirka amniga ee Soomaaliya in markaasi ay warbixin 48 saacadood kadib hay-adda NISA ay ku soo bixiso. Cabdinaasir Al-Cadaala ayaa wararkii ugu dambeeyay ee xogahaas inoo haya. iyadoo wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur uu dalbaday warbixin ku saabsaneed xaaladda Muqtaar Roobo ayaa waxaa arrintaasi ka jawaabay taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo markii hore laga dalbaday warbixin